labaatan lama askari oo ku tirsan ciidamada booliska ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xanaasay oo bilo ka hor tababarka ciidan Bambeyta linka bilaabay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ciidamadaas ay geeka waliba radio hankanageena magaalada Baydhabo taas oo xarunta ku meeldeerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay yaa waliba oo ciidamadaas ay u soo dhiirigeliyay sidii dalsho iyo dadyo iyo walanka lahayeen sila dardaaram geeka aragahay eedan suurad badantiin moraalkin faylay qalbi faylintiin ho qolada oo turmbada dhawaas iyo qolada kale gurbaan dhawaas inta dadeedan faylon wala la siin faday number 1 faylanaantuna inay kirubtan intii signoolin faylanaantuna inay dadkan ka deegtan annagana inay Baydhabo la kooyay wala san nagaday lambo holo raahday annagada geek shaqadin wali taargaay tagnay ummadun wacyi geliidan way dhan walba dadka oo san markii wala dhooshin dadka dhan shucuurtiyo kat heeso wadaniga wala san soo badan wali fadana inay san insha Allah ta'ala san iska duubnaatan hoolal bilsin ku baahdoon san qobatan eedeedan ka faraxsan kooyowkin waqti badan qaado doona isla cashay doona isla qaday doona ilaahay hober eedeedasin kama hadnagaan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya yaa waliba inta badan iyo ka howlanta sidii ka kaaba fadhi ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abdiraxiin Maxamed Iqseer Jito